وعزوه معنا إنه دبال دقنو كود اللوليو وكسو وريقتي سنة قوردي اللحظة اللبات ومعنتا تاريخ دكو بيغنتا كود بيش تضوان لبدكم لاتني لبدا halkan waxaan ugu yeeri doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo asmo maxamed cabdiqaadir oo noo furfuri doonto waxa lagu furfurto waxa ugu fadliga badan aayadaha qur-aanka qolkii bifalya tafadal mashkuura ma أخين دونا القرآن الكريم كقولكي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحن على ذلك من الشاهدين حتى لو حاولنا دونا يحيى محمد مجيد ونوصل جديد دونا حديث صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا waxaan u yeeri doonaa Muniir Maxamed Cabdullaahi oo noo soo jeedin doonta nashiido kaliya tafadal أحييكم وبالأشواق ناديكم فأغلى وردنا أنتم وكونوا ودلوديكم عصافير من الخلد تخرج بين أيديكم جوارحنا لكم سرور ومن دمنا نقاد فيكم أحييكم وبالأشواق ناديكم فأغلى وردنا أنتم وكونوا ودلوديكم على ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم أحييكم وبالأشواق ناديكم فأغلى وردنا أنتم فكلوا وابتلوا ديكم قلوب الناس أجناد كما قد قال آتيكم فإن ألفت فقد عرفت كمائل قد بدات فيكم هذا وحاول الناس صفية يوصلوا ونصر جدون هيس iskuulka garanaa waxay soo jeedin doonaa heesta qaranka Soomaaliyay tooso isku tiirsadae hadbakiina taagtarane taageera weligiine Soomaaliyay tooso isku tiirsadae hadbakiina taagtarane taageera weligiine idinkaysu dooqaayo idinkaysu daamee anuhu tacliin barayo wadankiisu taamee maadsanyihiin ardaydaas oo ka socotay iskuulka garaadmaal haatan waxaan u yeeri doonaa ustaad cumar cabdiweli xasan falyatafadal mashkuura mahduur waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan dhalinyarada rag iyo dumarka isugu jira ee quruxda badan ee hortayda ka mid maanta oo kale waxay ahayd xilligii gobolladii koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga ayna la midoobeen walaalahooda waqooyiga maanta oo kale waxay shacabka Soomaaliyeed uga dhigan tahay maalin aad u qiimo badan waxayna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u soo dhaweeyeen si wadajir ah walaalaha qiimaha badan si aad la socotaan ummad kasta waxa ay leedahay taariikh iyo dhaqan u gooni ah haddaan ka soo qaato halyeeyadii maanta oo kale ku xusan waxaa ka mid ah Awataako iyo Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan oo garanaysaa sayidku wuxuu ahaa hogaamiye xorinimo doona isla markaana u dhaqdhaqaaqayay Soomaaliya inuu ka xoreeyo gumaystihii ku soo duulay
waxaana u soo ruday inuu ka hortago casharna u dhigo kuwii waddankeena dulaan kusoo qaaday waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ugu hambaliyeynayaa munaasabadan waxaan leeyahay walaalayaal munaasabadan awgeed aynu u midowno gacmahana aan isqabsano sidoo kale waxaan halkan hambaliyo uga taliyaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay subxaanahu watacaala sanadkiisa kale qur'aan u gaarsiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan wici doonaa cabdullaahi ismaaciil oona soo jeedin doona hees علي ماشي waxaan kasoo jeedin doonaa hees gallow samada jiro salkuna warorsanyay ayaan saba kula dhasho halkay uma suudi karo samada calanka ku laran ayaan sanka taay baray adkay soo samir lahow bilaha soodkaay baray عارفنا واصلين عبدون جرسنا وحاحنا بريس ما سنساقنا وحدما قالوا سمدا جرا صدقنا ورور سيئي أيان سبقنا شو أبكي ومسؤولي كرا سمدا حلقا قلنا ayaan sakataay baray adkay soo samir lahow bilaha soodkaay baray haatan waxaan u yeeri doonaa caasho ifraax sihaam cabdisaaq iyo cabdijabbaar oo noo soo jeedin doono hees kubac dogiilayo isticmaalkii lumiyo waxaa mahad iska lah Allah subhanahu wa ta'ala
oo noo suurtageliyey inaan meeshan isku wada imaano sidoo kale na siiyey caafimaad aan ku wada imaano meeshan mahadda ugu horeysa asaa iska leh meel walba la joogana ama qof walba oo hadlayo marka ugu horeyso inuu mahad celiyo waa marka Allah subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa marka ardayda oo ka tirsan iskuulka Galaadmaal iyo dadka kale oo martida ah sidoo kale waxaan kaloo mahad celinayaa marka macallimiinta iyo xubnayaasha kale oo ka tirsan ururka Galaadmaal ujeedada ama muhiimadda maanta meeshan aan iskugu wada imaanay waxay tahay inaan maanta aan u dabaaldegno kooda luuliyo aan u dabaaldegno oo 2022 aan u dabaaldegnaa meeshan aan iskugu wada imaanay maxaa yeelay wadan walbo ama dal walbo wuxuu u dabaaldegaa maalinka asugu uu leeyahay maantana marka waa maalinka anaka aan leenahay maadaama aan nahay dad Soomaali ah maalinkeena waa inaan muujinaa aan u dabaaldegnaa si dadka kale ama wadan kale ama dalka kale aan u tusno inaan isku xiranahay marka waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa aan ku dhiirigelinayaa inay gacmaha isqabsadaan oo hal mid ay noqdaan oo wadada sanad walbaba ay u dabaaldegaan maalinkooda ay leeyihiin marka maanta ay ku beegan tahay kooda luuliyo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambaliyo waa maasantiin idinka haddana waxaan u yeeri doonaa Ustaad Faadumo Maxamed Axmed falyatafadal mashkuura mahduur munaasabadan aadka u quruxda badan iyo ardaydan aadka u quruxda badan oo reer Galaadmaal ah horta waxaan kugu hambaliyeynayaa kooda luuliyo marka waxaan rabaa inaan aado taariikhdeeda kooda luuliyo siday ku imaatay sidaa la wada socotaan isbuucan waxaan ku guda jirnay toddobaadka xorriyadda waxa loo yaqaano toddobaadka xorriyadda waxay noo soo bilaabatay 26 Juun ayay noo soo bilaabatay oo ahayd markii ay 1960kii ay gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo 5 gobol ah ay muxuu ahayd xorriyadda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska mar kale waxaa noo xigay munaasabadii 27 Juun 1977 oo ay laftirkeeda Djibouti oo Soomaaliya kamid ah laftirkeeda xorriyadda ka qaadatay Faransiiska gumeystaas ay laftirkeeda xorriyadda ka qaadatay mar kale waxaa soo xigay koonfurta Soomaaliya iyada laftirkeeda xorriyadda ay qaadatay waxay ka qaadatay Talyaaniga gumeysanayay kooda luuliyo ay ka qaadatay saadaradeed kooda luuliyo waxaa midoobay gobolada koonfureed ee Soomaaliya iyo gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxaa xusid mudan in ay gobolada waqooyi ee Soomaaliya 26 Juun 1960kii ay iyagu xorriyadda qaateen laakiin afar maalin ay sugayeen gobolada koonfureed ee Soomaaliya ayagana halka inta ay xorriyadda ka qaadanayaan in Soomaaliya xorriyadda qaato waxay ku timid dadaal fara badan oo muxuu ahayd dad anaga naga horeeyay oo awoowayaashan iyo aabayaashan intaba ah u soo dadaalay in xorriyaddan la helo adiguna aad ugu maasantihiin in adigoo ilmo yaryar ah ka qayb gashaan muxuu ahayd munaasabadaha ay Soomaaliya leedahay ardayduna ama ilmaha yararka laftirkooda xaqay u leeyihiin waxyaalaha xaqa loo siiyo waxaa ka mid ah inay ka qayb qaataan arrimaha wadankooda marka waxaa waaye ilmaha yararka waxaa la yidhaahdaa waxay dhahaan xaqii waxaan xaq u leeyahay anoo shaaraka inaan ka qayb qaato fi shu'uuni wadani arrimaha wadankayga marka idinku inaa arrimaha wadankiina ka qayb qaadanaysaan wax aad u wanaagsan waaye marka kale xorriyadda siday ku timid ayaan rabaa mar kale taariikhdeeda inaan aado sidaa wada ogsoontihiin adduunyada waxaa soo maray dagaalo fara badan oo dagaalkii koowaad ee dunida iyo dagaalkii labaad ee dunida intaba ah dagaalkii labaad ee dunida anaga dowladaha gumeysanaya sida Ingiriiska Talyaaniga iyo Faransiiska dabarjab fara badan ayaa ku dhacay maadaama ay dagaalkii labaad ee dunida dhabarka looga toogtay saa daraadeed gumeysiga iyo gumeysanayeen wuxuu noqday mid hoos u dhacay marka waxaa la yiri maadaama awoodiin hoos u dhaceen waa in meelaha ay haystaan xorriyad ah siisaan saa daraadeed 1950kii gumeystaha waxaa laga saxiixay in ay gaarsiiyaan wadamada ay ku jiraan xorriyad marka waxay dhaheen waxaa u baahanahay 10 sano in xorriyadna la siiyo heshiiska 1950 oo dhacay 10 sano jaanis loo siiyay 10 sano ay weliba sii haysteen oo dheeraad ay dhahayeen Soomaaliya jaanis u siinayna inay laftirkeeda waa ku istaagi karto oo waxaas wax been iska ahaayeen marka waxaan rajeynayaa inaan midnimada ka shaqeyno لأنه وحنا نحن أمة واحدة وحنا أمة واحدة أما هلا تسعى رادليس بعزها شرفتها سوق وحلينا صومالي وحاول علينا عاش الصومالي هكونا راتو موحدة بالنمو خوية أو حقوة حرة أو حرة مكوكا مربنا سيب بديو مكو حلينا نحن أمة واحدة تسعى بعزها والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد إبراهيم حرسي.
حفلتها أنتكم قرب بدن الأمة مسلمة maalinta calanka huriyadii Soomaaliya ay qaadatay marka aad ugu faraxsanahay waraa inaan kan igala soo qayb galo barnaamijkan anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha wacyigelinta iyo garaadmaal marka insha Allah aad u maasantii waxaana mar labaad iyo mar saddexaad idin dhihi lahay inagoo isku duuban hambali insha Allah أستاذ فرحان محمد إيمان فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ورنا الله سبحانه وتعالى أيام هاد إذا كانت أصبناتي نوسور قليل إنه نود عافمات خبنا إن المانت إذا بالدقينو سنقولي لحدني اللوات كسو وريتي مالك أي جون مدقاتين جولة كونفرنس دلك الصومالية إسلامالي كان أي مدوين جولة وقوي كونفربا طبعا ولقى تاريخي أحيين يعني مع الله حرية وكسو بلان سليح لواتن كجون وأحمد كأي جون مدقاتين جولة وقوي دلك الصومالية إسلامالي كان أي جون مدق أما يعني حرية كقاتين جمستي إنجليزكا كن سديد بخال سديدن إيه مركز أفرت خمسة سو كلنا ما أنت حكوا بين كودو لوليو أو مالك إيجونيمة قاتين جولة كونفرنس دلك الصومالية أو إيجان إيجونيمة قاتين جمستي تريانيكا سو كلا وحنسو جدودنا له لواتن يتضاود جون أو إيجان كوب إيجان مالك إيجونيمة قاتين جيبوت أو كم يدشان الصوماليين إيجان جمستي فرانسيسكو جمستنا يفرد قاتين marka in lixdan iyo laba sano kadib maanta aan u dawaaldegayno anaga oo xor ah yani xoriyadii ay soo dhiciyeen awoowayaasheena waa waxa Allah subhanahu wa ta'ala loogu mahad celiyo munaasabadaha noocan oo kale waxa loo qabanaa waxay tahay in maadaama anaga aan ahay dadkii jiilkii dambeeyay yani awoowayaasheena xoriyada keenay dadka dambeeyay aan ahay in aan dareeno in yani gobonimada iyo xoriyada yani jildi dadaal badan la soo geliyay muhiimna ay tahay in sanad kasta la xuso marka sidaas darteed waa maadaama idinkana dareemaysin oo calankii aad kusoo wada labisateen oo maasha Allah oo astaantii aad idinkaga muuqato waxa Allah subhanahu wa ta'ala loogu mahad celiyo laguna farxo marka insha Allah dhammaan ardayda iskuulka garaadmaal maamulka iyo macallimiinta iyo guud ahaan xubnaha ururka waxbarashada wacyigelinta ee garaadmaal waxaan leeyahay hambali sababta lagu keenay waxaan ku taxay aragtida ma ku gaarto Soomaaliya oo dadka nabada insha Allah aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay haddana waxaan u yeeri doonaa ustaad Cabdullaahi Suleymaan Daawud falyatafadal mashkuur ورن الله سبحانه وتعالى ما نسأله بقدي وما أنت مسؤول كلي إن خلنا حفظنا قرب البلد أو تبع الدبينو مناسبة maalintii xorriyadda ay qaateen gobolada koonfureed isla markaana ay midoobeen waqooyi iyo koonfur dalka Soomaaliya intaas kadib waxaan rabaa inaan war ku dheeraado marow inaan halkan hambali ugu diro Soomaali meel kasta ay joogto dal iyo dibad annagoo ah iskuulkii garaadmaal oo magacan ku hadlayo magaca macallimiinta iyo maamulka iskuulka sidaas darteed waxaan leenahay reer garaadmaal xubnaha ka tirsan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay maanta waa maalin weyn oo maalin ka duwan maalmihii hore hambalyo intaas waxaa sii raacana yani kuwii iyo munaasabadda ku imaaday iyo qaabka ku timid waa la sharxay waana laga hadlay annaga waxaan u taaganahay waxa waaye inaan mar kasto maalmahan xorriyadda aan xusno aan xasuusanahay dalkeena oo qalbigeena ugu yaalo haddaan nahay arday haddaan nahay macallin haddaan nahay maamul sidaas darteed waxaan leenahay hambalyo asalaamu calaykum aad ayuu mahadsan yahay ustaadkeena haatana waxaan isla soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena haatana waxaan u wacinaa Maryan Maxamed Cusmaan oo noogu xirxiri doonto wax lagu xirto waxa uu fadliga badan Maryan Maxamed Cusmaan حنيرة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.